بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. سورة المائدة آيات 49 ayuu darsigu nooga bilaabmayaa. waxaa ilaahay subxaana wa tacaala halkan noogu sheegayaa arrimo la xidhiidha waxaa la yidhaahdo ugaarsiga, oo runtii dadka carabeed ay aada iyo aada waxa weeyaan ugu badnaayeen. laba sababood baana keeni jirtay duruufta dhaqaale oo iska waxa weeye adkayd, markaan iskagaba noodhaayeen inay soo ugaarsadaan had iyo jeer ale waxyaabaha waxa weeye ilaahay berigaa ku uumay, iyo arrinta kaloo ahayd inay hiwaayadba u ahayd, iyo waxyaabada ay iskaga xataa boqoradoodu iyagoo wax kasta haysta waa iska jeclaayeen inay ugaarsiga iyo sayidka waxyaabaha noocaas oo kale u baxaan. marka halkan ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu ku caddaynayaa axkaam la xidhiidha ugaarsiga, khaasatan qofku markuu xaajiga yahay ama muxrimka yahay. marka allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay: yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu iimaanka laho layabluwanna wuu idinku imtixaami oo wuu idinku imtixaami kum idinka allahu ilaahay bishayin shay min asaydi ugaadha ka mid a, tanaaluhu kuwaasoo ay gaadhayaan aydiikum gacmihiinu, wa rimaaxukum iyo warmihiinu. macnaha waa la idiin soo dhaweynayaa si aad mararka qaarkood uba qabsan kartaan adigoo aan howlba u galin, ama waran yaroo tuurtay waxa weeye gaadho. liyaclama allahu si uu ilaahay u ogaado cilma duhuur man yakhaafuhu cidda ka cabsanaysa bilgaybi, iyadoo ilaahay subxaana wa tacaala waa mooyaane cid kaloo arkaysa aanay jirin, ama qofku isagoo dee ilaahay aan arkaynin, maadaama ilaahay uu isagu arkayo, qeybka ilaahay kaga baqanaya iyo kii kale ee aan ilaahay ka cabsanaynin baa la rabaa in la kala caddeeyo. saasaa ilaahay idin imtixaamaya. faman ictadaa qofka xadgudba bacda daalika intaa dabadeed, oo macnaha waa intii laydinka xaraantinimeeyey xilliga aad muxrimiinta tihiin inaad ugaadhsataane, falahu wuxuu leeyahay cadaabun cadaabkaasoo aliimun mid kulula. yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu iimaanka laho laa taqtuluu hadilina assayda ugaadha hadilina walxaal antum idinku xurumun ay muxrimiin, aada muxrimiin tihiin oo xaj uu idiin xidhan yahay. ugaadhii waa la idinka xaaraantinimeeyey inaad dishaan, oo waxa weeyaan dilkeedaabaa laydiin diidayba, cunudeeduna dee kaba sii daran. waman qatalahu qofka dila minkum idinka idinka mid ah mutacamidan xaal uu yahay kii u badheedhaya, fajazaa-un ay facalayhi jazaa-un magdhow baa saaran buu leeyahy alla subxaana wa tacaala. mithlu maa qatala waxa saaran, facalayhi korkiisa waxa saaran mithlu maa qatala wixii uu dilay wax lamida inuu bixiyo, oo waxa weeyaan lagu xukumayaa, oo min annacami nicmooleyda ah. ugaadhi u dilay waxa u dhigma oo xoolaha aynu dhaqano ah ayaa lagu leeyahay oo looga qaadayaa magahaan weyn. yaxkumu waxaana xukumaya bihi shaygaas waxa weeye qofku uu bixinayo dhawaa cadlin laba caadiliina oo cadaaladu saaxiiba, oo minkum idinka idinka mid a, oo waxa weeye ayaa xukumaya weeye. hadiyan baaliga alkacba, xaal
marintaas ama magdhowgaasi u yahay hadiyan hadi baaliga alkacbati kacbada gaadhay xoolaha marka lagu xukumo qofka waa in xoolaha lagu soo qolaa xaramka oo hadi u noqda weey aw kafaaratun ama kafaara ayaa ku waajibaysa طacaamu masaakiina taasoo ah quudin masaakiin la quudiyo aw cadlu daalika ama wax u dhigma quudintaas oo siyaaman soona ayaa lagu yeelanaya ka waa saddex yani waxa weeyaan marxaladood ayaa laynoo sheegay wey liyaduuqa si uu u dhadhamiyo wabaala amrihi aayaha iyo cidhib xumada uu leeyahay arrinka uu ku kacay ayaa loogu ciqaabayaa buu leeyahy alla subxaana wa tacaala inuu intaasoo yani waxa weeye shay mid ka mida sameeyo cafa allaahu waa idinka dhaafay ilaahay camaa salafa wixii tegey oo ilaahay subxaana wa tacaala wixii inta xukunku yimi ka horreeyey ee aad yani waxa weeyaan idinkoo muxrimiina aada sayd iyo gaadh iyo wax noocaas oo kale aada disheen ama aada cunteen waa laydinka cafiyey ee waman caada qofka ku noqda xukunkaas markii la caddeeyey kadib fayantaqimu allahu wuu ka arsanayaa minhu ilaahay wuu ka arsanayaa ninkaas yani waxa weeye waanu ku ciqaabayaa wallaahu ilaahayna casiizun ilaah awood badan weeye duntiqaam argoosina leh oo cidda uu doono ilaahay subxaana wa tacaala waa ciqaabaa si daran baanu ciqaabaa uxilla waxaa laydiin xalaaleeyey lakum idinka saydulbaxri ugaadhii badda ayaa laydin xalaalateeyey uxilla waxaa laydin xalaaleeyey lakum idinka saydulbaxri badda ugaadheedii ayaa laydin baneeyey iyo wa طacaamuhu cuntada wixii la cuno oo badda ku jira mataacan xaal ay tahay mataac iyo raaxo iyo sahay lakum idinka walisayaarati iyo dadka musaafiriinta ahba idinkoo xujaaja oo muxrimiina iyo dadka kale iska safrayaba ilaahay subxaana wa tacaala uu u baneeyey oo iyada laydinkana xaaraantinimaynin inaad kalluumaysataan ama wixii badda ku jira aad la soo baxdaan oo dabeetana aada cuntaan wa xurima waxaa laydinka xarimay uun calaykum idinka saydulberi ugaadhii berigaa laydinka xarimay maa dumtum inta aad tihiin xurumaa dad muxrimiina oo xaj u xidhan yahay inta aad tihiin laydinma ogola ugaadhi wixii beri jooga inaad ugaadhsataan wataqu llaha ilaahay ka cabsada alladii allihii ilayhi xaggiisa tuxsharuun laydiin soo xushrin doono jacala allaahu ilaahay wuxuu ka yeelay alkacbata kacbada wuxuu ka yeelay albeyt alxaraama beytka xurmada leh waxa ilaahay ka yeelay ka bedelu qiyaaman yani waxa weeye mid u taagan linaasi dadka yani shay qiyaam ahoo dadku u baahan yihiin oo maslaxada dadka u taagan baaba ilaahay beytkan ka dhigay wey washahra alxaraama bilaha xurmada lana ilaahay wuxuu ka dhigay qiyaaman linnaas walhadya hadyigana iyo walqalaa-idana qiyaaman linnaas yani afartaa shayba waa afar shay oo dadka maslaxadoodu ay ku qotonto buu leeyahy alla subxaana wa tacaala daalika kaasina litaclamu waa inaad ogaataan ana allaha ilaahay yaclamu inuu og yahay maa fi samaawaati waxa cirarka ku sugan wamaa fi lardi wa ana allaha ilaahay bikulli shayin shay kasta caliimun kii og weeye iclamuu waxaad ogaataan ana allaha ilaahay shadiidu lciqaab ciqaabkiisu miduu adag yahay wey wa ana allaha ilaahay gafuuru raxiim waana mid dembi dhaafo ah oo yani waxa weye waa gafuur waa dembi dhaafe raxiimu naxariista maa cala rasuuli ma aha rasuulka korkiisa ila albalaaq gaadhsiin mooyaane wax kale oo ilaahay subxaana wa tacaala uu ku waajibiyey ma jirto wallaahu ilaahayna yaclamu isagaa og maa tubduuna waxaad muujinaysaan wamaa taktumuuna iyo waxaad qarinaysaanba qul waxaad tidhaahdaa laa yastawi ma sina alkhabiisu shayga xaaraanta ah iyo watayibu shayga xalaashiihi wax siman maaha wey walow acjabaka haba ku cajabgeliyo kahratu lkhabiid waxyaabaha xun yani waxa weeye badnaanshahooda ama dadka waa wanaagsan iyo dadka xunxuni wax laysku dhigo ma aha haba bataan dad xunoo yani waxa weeyaan haba fara bataane fattaqu llaha ilaahay ka cabsada
yaa uli lalbaabi dadka caqliga lahow lacallakum waxaa mudantihiin tuflixuuna inaad liibaantaan yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu iimaanka lahow laa tas'aluu ha weydiinina nabiga calayhi salaatu wasalaam can ashyaa'in shayaha weydiinina in tubda lakum haddii la idiin muujiyo tasu'kum idin murugelinaysa wa in tas'aluu haddaad weydiisaan canhaa su-aalahaas xiina yunazalu lqur'aan marka qur-aanka la soo dejinayo tubda lakum waa la idiin caddayn oo haddii qur-aanka matalan waxyaabaha aad u baahantihiin oo tafaasiila yani waxa weeyaan waa la idiin bayaaminayaa cafa allaahu ilaahay waa cafiye canhaa wixii hore waa idinka dhaafay wallaahu ilaahayna gafuur waa dembi dhaafe xaliimu dulqaad badan qad sa'alaha way weydiiyeen su-aashaas qowmun qolo min qablikum idinka horeeyey ayaa ambiyadooda weydiiyey uma dabadeedna asbaxuu waxay noqdeen bihaa isla wixii ay dalbanayeen kaafiriina kuwa ka gaalooba ayay noqdeen oo yani waxa weeyaan ka kufriya maa jacala allahu ilaahay kama dhigin oo yani waxa weeyaan ma sharciyeynin ilaahay sharci kama dhigin min baxiiratin waxa baxiirada la yidhaahdo walaa saa'ibatin iyo saa'iba walaa wasiilatin iyo wasiilo walaa xaam waa 4 nuuc oo xoolaha ay u qeybin jireen qoladii carbeed ee samanujaahiligii wey oo xoolahooday markaa yani magacyo u kala bixin jireen dabeetana sharci iyo xeer wax la yidhaahdo ayay u sameeyeen oo waynu arki doonaa insha allahu tacaala waxa ay culimmadu ku macneeyeen baxiirada waa 4 nuuc oo xoolaha ka mid a ayay magacyadooda la baxeen marka agtooda wuxuu ka ahaa dee wax muqadas oo aan lagu khaldami karin wey walaakin ha yeeshee aladiina kuwa kafaruu gaaloobay baa yaftaruuna ku abuuranaya cala allaahi alle alkadiba been wa akharuhum badankooduna laa yacqiluun waxba fahmi maayaan waidaa qiila marka lagu yidhaahdo lahum iyaga tacaalow u kaalaya ilaa maa anzala allah waxaa ilaahay soo dejiyey oo sharciga ah oo qur-aanka ah wa ila rasuuli rasuulka u yimaada marka la yidhaahdo qaaluu waxay odhanayaan xasbunaa waxa nagu filan maa wajadnaa calayhi waxaan ka soo gaadhnay aaba'anaa aabbayaashay waxaan aabbayaashaya kula kulannay ee aanu ka dhaxalay ayaa nagu filan uma baahnin markaa qur-aan iyo sunno midnaba awalow kaana yani waxa weeyaan miyay iska yani waxa weeye raacayaanu low kaana haddii ay ahaayeenba aabaahum aabbayaashood laa yaclamuuna shay-an kuwa aan waxba garanayn oon diinta ilahay waxba ka aqoonin walaa yahtaduuna isla markaana aan hanuunsanayn oo hadi iyo diin iyo dee dariiq ilaahi subxaana wa tacaala aan waxba kitaabba ka haynin miyay iska raacayaanu yani waa su-aal weeye waa na arrin khatar ah oo dee waxa weeyaan u taala cid kasta oo kitaabka ilaahi subxaana wa tacaala yani waxa weeye ka qawada isla markaana ka doorbida xeer ay dee dadkoodii hore dejiyeen ama cid hore ay yani waxa weeyaan ka dhaxleen oo ay leeyihiin waxaan hiddo ayaan u lahayn ama sharcigana jiray oo waalidiintaydii ka tegeen isagaa markaa nagu filan ilaahi subxaana wa tacaala marka aayaadkan waad arkaysaa mar walba in suuradda waxaa ku badan baynu nidaaga yaa ayuha aladiina aamanuu marka halkan waxaa loogu baaqayaa yani waxa weeyaan khaasatan dadka xujaajta ah in ay ilaaliyaan waxyaabaha ilaahay subxaana wa tacaala uu ka reebay oo ay ka fogaadaan isla markaana yani sharciga ay dhowraan marka waxaa ka mid a saynu sheegnay ugaarhsiga looma ogola qofka xaajiga ah ee xaaladda ixraamka ku jira inuu ugaarhsi sameeyo sidaas baa haddana ilaahay subxaana wa tacaala uu imtixaamay saxaabada ridwaanullaahi calayh oo sidii nimankii reer bani israa'iilba loogu imtixaamay markii la yidhi maalinta sabtida ha kalluumaysanina oo dabeetana yani waxa weeyaan ay ka fadhiisteen baa kalluunkii maalintaas dibadda wada imanayay baalkii raadacada iyo yani waxa weeyaan dee maanta oo dhan lagu xiiqayay ayaa wuxuu iska imanayaa badda xilligeeda ayuu iskaga ciyaarayaa dabeetana yani waa kuwii dee shabagyada u dhigtay ee imtixaankaa ku dhacay sidiisa lamida ayaa waxa la imtixaamay saxaabadii nebiga ridwaanullaahi calayh maxaa lagu imtixaamay waadha aad ba u jeclaayeen oo waanaga nidhi hiwaayad baabay u ahaydba xataa haddaanay baahnayn inay iska ugaarhsadaan
baashii markaa faraska lagu eriyanayay buuraha looga dhacayay maalin oo dhan lagu maqnaan jiray ayaa iska timiday yani waxa weeyaan hortoodii oo gacmahoodii baa gaadhaya wixii yaryaraayee dhashaa siduu ibnu cabaas leeyahay addaciifu min azayd wa sagiirihi ayay gacmahoodu gaadhayeen ka yaryar iyo ka yani waxa weeyaan daciifka ah iyo ka yar ee dhashaa gacantaabay ku qabanayeenba umay baahnaynba inay dee faras ka daba eryadaan iyo inay leeb iyo waran iyo waxa u adeegsadaan kiisa waaweynna warankaaba gaadhayeyba dee warankuna intuu gaadho waad garanaysa marka waa lagu imtixaamay yaa ayuha aladiina aamanuu layabluwannakum allahu ilaahay wuu idinku imtixaamaya waa loo caddeeyey qoladaa hore ahlu kitaabna waa loo caddeeyey laakiin dee iyagu way ku fashilmeen sida ilahay nooga warramay subxaana wa tacaala fi suurati alacraaf laakiin saxaabadu way ku guulaysteen ilahay wuxuu layabluwannakum allahu bishayin shay min asaydi ugaadha ah tanaaluhu xaal ay gaadhaysa aydiikum gacmihiinu iyo wa rimaaxukum warmihiina gaadhaya oo ugaadhii waxaabad ku gaadhaysa ama warana tuurto ama adaan waradba tuurin baabad yani waxbay soo qabanaysaa maxaa marka ilaahay subxaana wa tacaala idinku imtixaamaya liyaclama allahu man yakhaafuhu bilgayb ilaahay wuxuu doonayaa inuu ogaado horeba waa u ogaaye waa cilma duhuur weeye cilmi qofka lagula xisaabtamo oo waajibinaya abaalmarin janno ah iyo ciqaab naareed ayaa ka dhalanaya dee qofkii fuliya amarkaa ilaahayna ilan sharciga qofka wuxuu ku fulayaa un marka ilaahay subxaana wa tacaala uu amar siiyo ee amarkaa uu yani waxa weeyaan ama jebiyo ama ku dhaqmo hadduu ku dhaqmana ajar ka helaya haddii uu jebiyana lagu ciqaabaya wey laakiin waxa ilaahay hore u ogaa oo qofku inuu waxaa samaynayo iyo inaanu samaynayn taa qofka lagula xisaabtami maayo sidaa darteed baa culimada qaarkood liyaclama ay liyudhira si ilaahay u daahiriyo ayaa ilaahay subxaana wa tacaala yani waxa weeyaan uu imtixaamaya oo loo muujiyo qofkii ilaahay ka cabsanayay iyo qofkii aan ilaahay ka cabsanayn oo loo ogaado qofkii dee ilaahay ka baqayay subxaana wa tacaala yani waxa weeyaan isagoo aan arkaynin laakiin rumaynuu rumeeyey kaga cabsanayay ayaa yani waxa weeyaan ayaa la ogaanayaa oo soo baxaya wey marka faman ictadaa bacda dalik marka amarkaasi yimiday dabadeed ciddii xadgudubta falahu cadaabun aliim markaasaa ciqaabku ratibmaya cadaab mu'lima ayaanu leeyahay buu leeyahay alla subxaana wa tacaala waay yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaan kalo laa taqtuluu hadilina asayda waa kan amarkii marka ugaadhii hadilina wa antum xurumun idinkoo muxrimiina hadilina baa ilahay yihi subxaana wa tacaala marka ha cunina way iyo hadilina way sii yani waxa weeyaan waa sii kala duwan yihiinoo xataa adigoo aan ugu talagalinba inaad cunto inaad iskaga maararowdo oo iska disho ayaa lagu ogolayn haddaad cuntona dee ka yani waxa weeyaan kaba sii daranba marka waa la xaaraantinimeeyey xaaladda qofka xaajigii uu xajka ku socdo ilaa inta uu soo dhamaysanayo acmaasha xajka looma ogolo wey waa loo diiday saasoo kale waxaa la diiday yani beledka xurmada leh in iyadana wax lagu dhex dilo oo xuduud baa jirta xaramku leeyahay iyada goor walba dee lama ogola oo haddaad xaaji tahay iyo haddii aad qof magaalada iska degan tahayba xuduudda waa in ugaadha lagu nabadgeliyo laakiin wixii xuduudda ka baxsan waxaa la diidan yahay qofku markuu xajka u socdo inuu ugaadhaas u dilo marka ugaadhaasi maaha keliya waxa la cuno xataa waxaan la cunin ayaan la ogolayn in la dilo oo iska duurjoogtaas maxaan ku rahdaa ayaan iyada lafteeda la ogolayn oo dee doofaarka iyo waxyaabaha noocaas oo kale ah in la dilo lama ogola keliya shan shay buu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam in la laynayo 5 fawaasiqa yuqtalna fi lxilli walxaram yani 5 la yidhahdo fawaasiq ayaa iyaga waxaa lagu dilayaa qofku isagoo maxaan ku rahdaa muxrima iyo isagoo aan muxrim ahayne iska xalaalaba waa la dilayaa buu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam 5taas marka waa alguraab tukaha walxudaa baasha la yulida la yidhaahdo ama dhufatada walcaqrab dabaaleelaalaha walfa'ra jiirka walkalb alcaquub iyo eyga markaa dadcunka ah maaha eygan kale ee aan waxba kuu dhibayne eyga laakiin dadcunka ah isagana waa la dilayaa markaa qofku 5taa shay hadduu dilo waxba la weydiin maayo
waxay haleeshiyaan imaam axmed ibn xambal iyo imaam malik raximahumullah kelbiga caqrabka ah wixii dugaaga ee yani dadka cuna sida shabeelka iyo haddii la ku rayo abeesada iyo bahalka harmacadka la yidhaahda iyo kuwaas xala wixii dugaaga ee muftarisee dadka iyo dunyada cunaya oo wax yeelaya ayagana yani waxa weeyaan waa bannaan yihiin bay yidhahda laakiin nasku wuxuu caddeeyey shantaas ayuu caddeeyey ama wixii kale hadduu yahay wax la cunayo iyo hadduu yahay waxaan la cunaynba ayadu waa xaaraan in la dilo lama ogola haddii markaa uu dilo xukunkana marka ka yaalla wey qofkaasi marka waxaa isku mid a inuu u badheero iyo inuu ku khaldamo lama kala saaro waman qatalahu minkum mutacamida fajazaauhu mithlu ma qatala min annacam qofka dila oo yani waxa weeyaan ugaadhaa u dila mutacamidan isagoo u badheeray fajazaaun ay facalayhi jazaaun markaynu tanwiinta saa u akrino waa jamhuurtu saa u akriyeene waxa saaran inuu yani waxa weeyaan waxa saaran magdhow baa saaran kaasoo lamida wuxuu dilay oo maalan hadduu qofku gorayo dilo waxaa la leeyahay neef geelaa lagu yeelanaya hadduu dabeer farow dilo neef lo-a lagu yeelanaya hadduu deero dilo neef adhiyaa lagu yeelanaya macnaha xoolahan aynu dhaqano ayaa looga soo qiyaas qaadanaya wey waa warka wixii mathal leh ee xoolaha wax u eg laga helayo wey wax haddaanu mathalba xoolaha ku lahayn maxaa laga yeelaya marka waa la qiimeynaya waa sida jamhuur alculamaa ay qabaan wey waxaana qiimeynaya labadan caadil ee ilaahay yidhi yaxkumu bihi dawaa cadli minkum ayaa kuwaas marka horeba ku odhanaya gorayaa dishaye waa inaad hal bixisaa oo weliba xataa siniga cabiraya da-da yani waxa wey qofka lagu yeelanayo ayuunbaa yani waxa weeyaan shaygan kalena cabiraya weeye oo odhanaya kan xoolihii dee mathal looguma hayee waa inaad intaas oo yani waxa wey lacaga bixisaa ama intaasoo raashina aad bixisaa ama intaasoo maalmood aad soontaa ayagaa markaa yani waxa weeye qiimeynaya wixii laakiin maalan sidaas ayaa iyaga loo bixinaya fajazaau mithlu ma qatala min annacam waa madhabka jamhuurta wey abu xaniifa isaga wuxuu leeyahay mid walba waa la qiimeynaya oo haddii xataa gorayo la dilo waxa weeyaan qiimaheeda ayaa la ogaanaya ila waa la kala iibsan jiray bahasha marka qiimahaasaa la bixinayaa oo lacagunbaaba wax lagu bixinayaa isaga uu fududeeyeyba waaye marka wuxuu leeyahay halkan waxa mutacamidan ba ayaa lagu cabiray laakiin jamhuur alculamaa waxay qabaan waxaa isku mid a inuu qofku u badheero iyo inuu ku khaldamo ama isagoo ilowsan baa yani waxa weeyaan uu dilo ayaa isku mid bay noqonayaa wey imaam zuhri wuxuu leeyahay dalla alkitaabu cala alcaamid kitaabku wuxuu sheegay qofka badheeray wajarat الsunnatu cala annaasi sunnaduna waxay caddaysay in qofka yani waxa weeyaan ilowsan laftiisu uu bixinayo wey oo waxa la yidhaahdo yani waxa weeyaan itlaaf yani itlaafu lmumtalakaat qofku hadduu hanti qof leeyahay baabi'iyo dee magdhow baa lagu leeyahay la odhan maayo miyaad u badheedhay mise waad ku khaldantay oo xataa hadduu ku khaldamay dembigaa ka dhacaya xagga ilaahay buu dembigu ka dhacaya laakiin hantidii qofku uu ku lahaa waa laga qaadaya waa taasta caruurta lafteedu haddii ay yani waxa weeyaan wax sameeyaan looga qaadayo dee inay wixii waalidkooda ay maga dhabaan iyo ciddii kafaaradooda haysay inay bixiyaan caruurtu waa mukalafiin maaha marka halkeenoo soconaa waxa weeye mutacamidan tan aayaddu ay cabirtay jamhuur alculamaa waxay leeyihiin naasiguna waa la mid oo isagoo ilowsan ama isagoo aan uguba talagelin haddii isagoo wax ridaya ay ugaarhka ka dhacdo isagana saas oo kale ayuunbaa loogu yeelanayaa oo yani waxa weye waa laga qaadayaa magdhowgii laakiin xaggii ilaahay waxay ku kala duwanaanayaa badheerka iyo gafku ama khaladku xaggii ilaahay baanu qofkani dembi ku yeelanay oo ilaahay dee uu ka cafinaya laakiin sharciyan waxaa la leeyahay waa inaad bedelkaa keenta wey yaxkumu bihi dawaa cadli minkum hadyan baaliga alkacba xaal u yahay markaas shaygaa bedelka ah maxaan ku dhahdaa ee lagugu xukumay waa abaalgud iyo hadyi iyo baaliga alkacbati kacbada gaadhaya
oo yani waxa weeyaan wixii lagu xukumo matala haddaad goroyo disho neef geel lagu xukumo geela waxaa lagu soo qalaya sidii hadigii oo kale xaramka lagu soo qalaya oo kacbada iminka waa la iska cabiray une waxaa loo jeedaa xaramka xuduudda xaramka ayaa lagu soo qalayaa hilibkaana waxaa cunaya dee dadka reer maka ee halkaa degan ama kuwa musaafiriinta aba ayaa cunaya kuwan dee hadiga aynu ku gowracno mina maalmaha la joogaba cuna unbaa hilibkoodana la siinaya waaye marka waxaasi waa markii ugaadhii aad dishay magdhow aad samaysay xoolo lagugu xukumay laakiin haddaan xoolaba lagu xukumin ama xoolihii baanad haynin maxaa la yeelayaa aw kafaaratun ama waa kafaaro ayaa korkiisa ah ka bedelo dacaamu masaakiina masaakiin quudintood ayaa lagu leeyay masaakiinta maxaa la quudinaya masaakiinta waxaa la quudinayaa matala haddaad goreyo disho neef geela lagugu xukumay oo waxaad haysaaba uu hadhuur yahay ama heed ama qaadi ama waxyaabaha dee dalagee dhulka ka soo baxa neefkaa geela intii hadhuur ku noqon lahaa ayaa lagu yeelanaya intaasoo raashinaad bixinaysaa raashinkaas hadeetana dadka masaakiinta aad ku quudinaysaa oo yani waxa way shaafici inuu leeyahay qof walba mud baad siinaysaa mud baad qof walba siinaysaa abu xaniifana wuxuu leeyahay qof walba laba mud baa la siinaya culimaduna labadaasay ku kala daba feeshayiin marka dacaamkaas ma xaramkaa isagana la geynayaa mise halkaad joogta lafteeda ayaa ku bixin kartaa oo matalan waa lagu xukumay xukunkii waa soo qaadatay laakiin markaad reerkaagii timiday ma bixin kartaa amaba halkaa kiisku ka dhacay laftooda masaakiinta joogta ma siin kartaa waxay leeyihiin shardi maaha in xaramka la geeyo jamhuur alculamaa waxay leeyihiin xaramka la geeyaa shardi maahe qofku wuxuu ku bixin karaa meesha uu arrintu ka dhacday ayuu masaakiinteeda siin karaa aw cadlu dalika siyaaman ama taa yani waxa weeyaan dhigaalkeeda oo soona ayaa ku waajibaysa oo mudka halka mud maxaa lagu xisaaminayaa inaad maalin soonto nin qofka maxaan ku rahdaa waayeelka ah ee la leeyahay soonka yani waxa weeye ma karayo soonka maxaa kafaaro u ah un maalintii hal mud bixiya soo maaha soonkii lagugu xukumay ee neefka geela markii la qiimeeyey raashinkii lagugu xukumay ayaa soon loo bedelaya marka halkii mudba maalin buu kugu noqonayaa wy isaga laftiisu ma yara liyaduuqa maxaa ilaahay subxaana wa tacaala sidaas uu yani waxa weeye ugu waajibiyey liyaduuqa si u dhadhamiyo wabaala amri arrintu arrin fudud maaha amar ilaahay baa la jebiyey si ciqaabkeeda u dhadhamiyo iyo arrinta aayaxumadeeda baa ilaahay subxaana wa tacaala ugu xukumay wy cafa allahu cama salaf ilaahay waa idinka cafiyey wixii hore oo yani waxa weeya wixii tegey hadda laydin weydiin maayo waman caada qofka ku noqda fayantaqimu llahu minhu ilaahay baa ka arsanaya wallahu ilaahayna casiizun ilaah awood badan weeye duntiqaam aargoosina leh oo cidda uu yani waxa weeyaan inuu ciqaabo doono dee ciqaabkiisao kale cid lamida ma jirto waay uxila lakum waxaa laydin xalaaleeyey sayd lbaxri badda ugaadheedii ayaa laydin xalaaleeyey oo macnaha wixii badda ku jira ee aada kalluumaysanaysaan ama aada ugaarsanaysaan oo aada soo dabanaysaan waa laydin xalaaleeyey idinkoo xataa muxrimiina ayay idin xalaal tahay buu leeya alla subxaana wa tacaala wa dacaamuhu cuntadiisuna xalaal bay idin tahay lakum idinka waa laydin xalaaleeyey wa dacaamuhu mataacan lakum walisayaara wa dacaamuhu xalaal yani cuntadiisuna waa la idiin xalaaleeyey oo ilahay baa idiin baneeyey subxaana wa tacaala marka cuntada iyo sayidkan maxay ku kala duwan yihin waxay leeyihiin cuntadu waa shayga baktiyey oo kale oo yani waxa weeya baddu ay soo tuurtayba yani u baktiyey dabeetana banaankaabay kusoo tuurtay marka kaan laftiisa ayaa dacaam noqonaya wey waayo waa yani waxa weeye milix buu leeyahay marka haddaan dee wax kale ku dhicin waa xalaal weeye waa lagu ogoliyay sayidkuna waa wixii isagoo nool badda aad shabaga u dhigatay ee soo ugaarsatay ayuu markaa noqonayaa ibnu cabaas sidaas ayaa laga wariyaa inuu leeyahay dacaamuhu maa yutasawadu minhu maliixan yaabisa waa wixii sahay loo qaadanayo oo dabeetana inta milix la mariyo la iskala tegayo oo qofku meeshuu doono uu markaas yani waxa weeyaan maxaan ku rahdaa uu la tegayo mar kale wuxuu yihi sayduhu maa ukida minhu xayan
sayidka waxa la yidhaha waa wixii isagoo nool laga soo qabto wa طacaamuhu maa lafadahu meyta dacaamkuna waa wixii badu soo tuurto isagoo bakti ay soo tuurta wey marka waa laydin xalaaleeye mataacan lakum xaala idin tahay sahay iyo raaxo idinka walisayaara iyo dadka musaafiriinta ahba oo socotada ayaa yani wax weye loo baneeyey marka yani waadhi markaa badu iyadu way ka duwan tahay waadha laynaga xaaraantinimeeye oo tii beriga wey waxurima waxaa laydinka xaaraantinimeeyey calaykum idinka saydu lberi ugaadhii berigaa laydinka xaaraantinimeeyey maa dumtum intaad tihiin xurumaa mar labaad ba laynagu soo celiyay intaad muxrimiinta tihiin oo xajku idin xidhan yahay laydinma ogola inaad beriga ka ugaadhsataan taa waa soo faahfahina xataa waxyaabahan la cunayn haddii dadku ay maxaan ku rahdaa iskaga maararoobaan ayaan la ogolayn allahuma ilaa wixii dhibaato leh oo waxyeelo leh oo dee dadku ay nafooda uga baqayaan ayuunbaa la fasaxay marka cunitaankeeda iyada maxaa laga yeelayaa waxay leeyihiin maalan ugaadha haddii qof aan xaajiba ahayn muxrim ba aynu iska soo ugaadhsado oo dabeetana wax kaa siiyo ma cuni kartaa laba xadiis baa soo arooray maalan nin baa nebiga calayhi salaatu wasalaam uu soo hadiyeeyey yani waxa weeyaan maxaan ku dhaha ugaadhu soo ugaadhsaday oo dabeer farow u keenay nebiga calayhi salaatu wasalaam nebigu uu ku diiday calayhi salaatu wasalaam markuu arkay inuu ninkii xoogay ka xumaaday ayaa wuxuu yihi innaa lam naruddahu calayka ilaa annaa xurumun war wax kale kugumanaan diidine waxaanu nahay dad xaj u xidhan yahay buu yihi nebigu calayhi salaatu wasalam oo muxrimiina wey xurum baan nahay marka yani waxa weeyaan waxaa kaloo jira xadiis sacab ibnu jathama saxaabi la odhanayay ayaa saxaabadii wada socotay ayuu intuu iska baxay buu ugaadh soo ugaadhsaday isaga markaa xaj ma xidhnayn buu iskala socduun dabeetana wuxuu u keenay saxaabadii dabeer farow buu ahaa dabeetana saxaabadii waa isu qabteen waxay yidhahdeen maan cunaa maya nebigaan weydiino nebigu calayhi salaatu wasalaam bay u yimaadeen wuxuu ku yidhi hal kaana minkum axadun ashaara ilayh miyuu idinku jira qof tusay ninkaas oo yani waxa weeye farta ugu fiiqay aw acaana fii qatlihaa ama ka gacan siiyey dilkeeda maya bay yidhahdeen yaa rasuul allah fakuluu iska cuna buu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa iska cuna waxba nebigana waxbaabay ka siiyeen oo sida saxiixaanka ku sugnayd uu cunay nebigu calayhi salaatu wasalaam marka maxay ku kala duwan yihiin kanuu ku celiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo kanuu maxaan ku rahda yidhi iska cuna isaguna wax ka cunay waxay leeyihiin culimadu markay labada xadiis labaduba waa saxiix markay iswaafajinayaan kan hore saxaabigani nebiga laftiisa ay nebigu usoo ugaadhayba isaga xiise kaleba uma haynine nebiga ku casuun buu islahaa calayhi salaatu wasalaam saasuu nebigu ugu celiyey oo u yidhi waa muxrimiin baa nahayo lanooma ogola ama kan saxaabiga kale ee sacab oo yani waxa weeye saxaabada u keenay oo dabeetana ay nebiga ula yimaadeen ka ninkan isagaa iska soo ugaadhsaday dabeetana wuxuu la jeclaysun markii dambe inuu walaalihiina wax ka siiyo iyagu markaa shaqo kumay lahayn umay tilmaamin waxba gacan kamay siinin yani waxa weeyaan isaguna ugumu talagalin markii hore inuu siiyo laakiin de markii wixii ka batay ayuu iyaga iska siiyey marka saasay ayay isku waafajiyaan waa xaggii cuntadii weeye ama xagga dilka iyada dee hadal kama taagna wattaqu llaha ilaahay ka cabsada alladii allahaasoo ilayhi xaggiisa tuxsharuun laydiin soo xashrin doono marka tan beriga waa taynu sheegnay oo dee lama ogol laakiin tan kale badda waxaynu nidhi culimadu waxay leeyihiin waa xalaal oo waa bannaan tahay laakiin su-aal baa jirta culimada qaar baa waxay leeyihiin wixii beriga xalaal ku ah ayuunbaa baddana xalaal kugu noqonay oo maalan yani xayawaanaadka qaarkood oo kale oo baddana ku nool berigana ku nool baa jira kuwa beriga la xaaraantinimeeyey sida doofaarka iyo yani waxa way xayawaanaadka muftariska libaaxa iyo waxyaaba noocaas oo kalea marka kuwa noocaas oo kale oo la yidhi hilibkooda ha cunina hadday badda ku jiraan ma la cunayaa jamhuur alculamaa waxay leeyihiin waa la cunayaa wax diidayaana ma jiro nebiguna calayhi salaatu wasalaam maba kala saarinba waxa badda ku jira ama doofaar wax u eg ha ahaado ama libaax ha u ekaado ama shabeel ha u ekaadee
يعني waxa weeye lagu diidaya ma jirto waa nabiga calayhi salaatu wasalaam markii ay weydiiyeen bacdu saxaaba ayaa waxay ku yidhaahdeen rasuulka ilaahayow waxaan maxaan ku rahdaa dee baddaasaan gallaa waxbaan yani waxa weeye iska soo maxaan ku rahdaa waxay weydiiyeen mararka qaarkood baa anagoo badda ku jira biyihii aan sidanay ayaa nagu yaraada waxaan ka baqnaa markaa haddaynu iska ku weysaysano in waxaan cabno baan weyno ila biyihii badda way dhanaan yihiin marka kuwan badda ma ku weysaysan karaa bay yidhahdeen yaa rasuul allah su-aashaasoo koobnayd bay weydiiyeen muxuu sheegay markaa nebigu huwa tahuuru maauhu alxillu maytatuhu biyahooduna waa daahir lagu dahaaro qaato waxa ku dhintayna waa xalaal buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiis kale wuxuu yihi uxilla lanaa maytataani wadamaan waxaa lanoo xalaaleeyey laba meyd iyo laba yani waxa weeyaan dhiig baa lanoo xalaaleeyey ama almaytataan falxuutu waljaraad meytida yani waxa weye labada meydka lanoo xalaaleeyey waa xuudka iyo jaraadka marka xuudka wax alla wixii badda ku jiro dhan baknuun la yidhahda marka magacyada dambe marka dambe ha kala qaato iyo ayaxa buu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam wa ama damaan falkabad wataxaal buu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam waa beerka iyo yani waxa weeyaan iyo beeryarta wey marka iyaguna waa maxaan ku rahdaa saas dabay jamhuur culamaa waxay leeyihiin lama kala saarayo wixii badda ku jire sumaduu doono midabku doono halaadee waa xalaal weeye waa la iska cunayaa meydkoodana waa la cunaya iyagoo baktiyana waa la cunayaa iyagoo noolna waa la soo ugaarsanaya oo waa la cunayaa wey waxaaba dhacday xilligii ghazawaadka xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam saxaabigii la odhan jiray abi cubayda ayaa nebigu wuxuu ku daray ciidan yani waxa weeyaan kolayo ah oo dee loogu talagalay inay gaalada meelaha kasoo waardiyeeyaan marka saayadiibaa ayaa ku yaraatay marka saayadii markay ku yaraatay waxaa la yidhi isku keena saadadkiina oo timir ubaysiteena timirtiiba xabad xabad baa loo siinay markaa ninku xabad timira ayuu maalintii ku dhamaysanayay xabad xabadiina way dhamaatay annagoo yaaban buu leeyahay saxaabigi jaabir bin cabdillaahi ayuunbaa badii waxay noo soo tuurtay waxaad buur moodo oo aada u buuran oo la yidhaahdo cambar buu yidhi yani xayawaan cambar la yidhaahdo ayay noo soo tuurtay bu dabeetana waanu isqabana waxaan war waxan waa bakti markaasaa wuxuu yidhi abu cubayda wuxuu nagu yidhi buu yidhi maya inagu waxaan nahay ergadii rasuulka sala allahu calayh wasalam haddana waa u yani waxa weeye baahi gasheen iska cuna buu yidhi dabeetana waanu iska cun buu yidhi baalkii oo yani waxa weeyaan waa ka dheragnay faaqamnaa calayhi shahran bil dhan baan halkii joognay oo baalkiin cunaynay buu wa naxnu 300 anagoo 300 ayaa geedkaa keliya ay cunayeen xataa samina ilaa aan naaxnay buu waxaan markaa ka dhuranaynay buu yihi subaga ishiisa godka isha godkeeda ayaanu jalxado dhan oo subaga ayaanu kala soo baxnay buu mararka qaarkood wax dibi la eg oo hilibaan ka goynaynay buu waxaa dhacday buu yihi maalin maalmaha ka mid a inuu 13 nin oo naga mid a abu cubayda u yeedhay wuxuu dhex fadhiisiiyey godkii isha xawayaankan ishiisa godkeedii ayaa 13 nin ay dhex fadhiisteen wey waa qol dhan de waa 13 qof halkay gal waa qol waa 4x4 wey ayuu dhex fadhiisiyey wey marna waxaan soo qaadnay uu yidhi feedhihii ka mid oo sidii dhigta ayaan u joojinay deetana geelii awrtii aan wadanaya ayaan heeriyeynay oo waa rarnay feedhii baan ka hoos bixinay buu yihi yani waxay dherar iyo ay ka qabto xabadii feedha ahayd kadib markaan muddadii joognay waxaanu ka soo qaadanay buu yihi sahay oo sidii hilibkii dee washaayiqda la jeexjeexayay ee sahayda loo qaadanaya inta yani waxa weeyaan xogee la yar qallajiyo milixda la mariyo ayaan soo qaadanay buu yihi magaaladii madiinaan soo gallay annagoo warkaa wadna arrintii baan nabiga u sheegnay sala allahu calayh wasalam deeta nabigu wuxuu yihi huwa risqun akhrajahu llahu lakum waa arsaaq ilaahay idin soo saaray fahal macakum min laxmihi shayun hilibkiisii waxba ka wadaan fatudcimuuna aadna wax naga siisaan oo aadinla cune markaa wuxuu leeyahay jaabir qayb baabaan u diray nabiga calayhi salaatu wasalaam uu iska cunay almuhim marka waxaynu uga soconnay
يعني وحويان waxa badda ku jira isaasu xalaal u yahay oo yani wax weeyaan aan loo kala saareynin ja'ala Allahu ilaahay wuxuu ka dhigay al-Ka'bata Ka'bada wuxuu ka yeelay al-Bayt al-Haram baytka ilaahay xurmada wuxuu ka yeelay qiyaman lin-nas yani shay u taagan dadka oo ilaahay subhanahu wa ta'ala diintooda u taagan oo waa rukni kamid ah arkaanta islaamka oo ilaahay subhanahu wa ta'ala inagu adoonsaday qof alla qofkii awood u helay inuu tago dhinaca kalena waa amaano marka la yiraahdo naaska wax loo jeedo reer Quraysheed de waxa lagu ixtiraami jiray oo maalkooda lagu badbaadin jiray oo afraadooda lagu ilaalin jiray oo qof kasta iyaga sheegta ay carabi uga yani wax way dambeyn jirtay waa beedka ilaahay ay gacanta ku hayaan waxa laga dhigay shay udub dhaxaad u ah noloshoodaba wa shahr al-haram waxa la mid ah bisha xurmada leh oo hadda shahr waa jinsiye waa biray xurmada lahaa weey oo afarta ahaa oo iyadana carabi ma dagaalami jirin waa bisha la yiraahdo Rajab bishii marka aynu ka soo baxnay iyo bisha la yiraahdo maxaan ku raahdaa Dhulqa'da iyo Dhulhijja iyo Muharram afarta bilood oo saddex ay isku xigaan Rajabna ay gaar u taagan tahay may dagaalami jirin marka iyadana nolol bay wahayd la inta kale oo dhan bay saxirsan jireen oo aan maal la bixin jirin oo cadaawada iyo wixii ka dhaxeeya yani dagaal socon jiray laakiin bisha bilahaas markay galaan waa la nabad gelin jiray qofku waxa laga yaabaa inuu arko qofkii walaalkii dilay qofkii aabihii dilay dabeetana uu indhaha ka laabto waanu sidaa u eegin wal hadiya wal qalaid hadiga ya qalaida hadiguna waa xoolihii hadiga ahaa ee xaramka la geenay iyagana looma dhawaan jirin oo yani waxa mar hadii la yiraahdo waxa uu leeyahay neefkaasi calaamadii xaramka iyo beedka ilaahay loogu yani waxa weeye loogu hadiyeynay ayadana way iska ilaalin jireen wala qalaa'iduna waa wax la xidhan jiray oo mesela xoolaha kale ama kaba lagu xiri jiray ama maydhax baa lagu xiri jiray adoo calaamad ayaa loo sameeyay jiray marka neefkaas adoo calaamada wato de dugaag mooyaane wax bini aadan oo u dhawaanaya ma jiro weey carabtana waa taqaano geel baa dayarka iimaanka ka tagay marka calaamadaas la socdo dadka xataa xajka tagaya way xidhan jireen si loo garto inuu qofkani beedka ilaahay u socdo marka afarta arimood yani waxa weeyaan waxay u ahayd muhiim ilaahay markana yani waxa weeyaan dadka muslimiinta miisaan weyn bay ugu fadhiyaan dalika taasi waxa weeye litaclamu saadu ogaataan an allaha ilaahay yaclamu inuu ogyahay maa fi samaawaat waxa ku sugan cirarka iyo wamaa fi lardi wa ana allaha in ilaahay bikulli shayin shay kasta caliimun wuu ogyahay iclamu ogaada ana allaha ilaahay shadiid lciqaab ciqaabkiisu miduu daran yahay inuu yahay wa ana allaha ilaahayna gafuur waa dembi dhaafe raxiimu naxariista maa cala rasuuli rasuulka korkiisa ma aha ila albalaaq gaadhsiin mooyaane wallahu ilaahayna yaclamu waa ogyahay maa tubduuna waxaa muujinaysaan wamaa taktumuun iyo waxaad qarinaysaan ilaahay baa subxaana wa tacaala og weeye marka waa taxdiir iyo digniin inoo soo jeedinayo inaan ilaahay subxaana wa tacaala axkaamtiisa aan lagu khaldamin oo la iska ilaaliyo in sharciga ilaahay la baalmaro sharciga ilaahayna waa in sidiisa loo gudayo qul waxaad tidhaahdaa nebi allow laa yastawi ma sinna alkhabiith ay alxaraam shayga xaaraanta ah iyo yani waxa weye waayib shayga xalaashihi ma sinna oo macnaha waxa weeyaan yani qaliilu min alxalaal naaficun khayru min alkathiir alxaraami daar in yaroo xalaala oo ilaahay kugu anfaco baa waxay ka fiican tahay xaaraan fara badan oo ku soo gasha oo dabeetana wax ku yeelaysa adduunkaada iyo aakhiradaada galaafata wey sida xadiiskii nabigu ahaa maa qalla wa kafaa khayrun mima kahura wa alhaa yani wixii yar ee ku kaafiya ayaa wuxuu ka wanaagsan yahay wixii farabata oo ku mashquuliya in la odhan jiray thaclaba ayaa u yimi nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi yaa rasuula allah udcu llaha an yarzuqanii maalan waxaad ilaahay ii baridaa inuu ilaahay maara igu arsaaqo markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu alay wasalam qaliilun tuaddii shukrahu khayru min kathiirin laa tudiiquhu in yaroo aada mahadnaqiisa ilaahay u guddo ayaa waxay kaaga wanaagsan tahay wax fara badan oo aanad ka mahad celin karin
وهذا ده حسابته كوكو بدنيس اللي هو ويان مالت القيامة حسابته واحد لو كل الراجع يصير لو كل هنتي بدي إلى قفت إلهي سبحانه وتعالى طريق عيسى ورب حمويان ولو أعجبك هبك وعجب جلس كثرة الخبيث يعني وححون بدنا شيء هبك وعجب جليه الدنياهان مركز يكتو واحد جعل يسطح النقطة لكن شيء وناكسن هي الشيء حون مس النبي لي الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله إلهي كعبصة يا أولي الألباب ذاتك عقل قاله لعلكم واحد مذنتين تفلحون إن الليبانتان يا أيها الذين كوا آمنوا إيمانك له لا تسألوا هويديننا النبي عن أشياء هويديننا إن تبدأ لكم هذه الله إذن عدايو تسوءكم إذن مرق لنيس وعذان كفر حينين marka yani waxa way aayad macna badan laakiin waxay aad iyo aad yani waxa weeyaan ku soo ururinayna waa su'aalihi aan su'aalaha aan ujeedada lahayn la su'aalaha shada doonaysa diintaada wax ka fahanto oo mas'ala ku haysata xaq lagu cadeeyo de tawaajib bay kugu tahay inaad weydiiso ilaahay baa fasalu ahla dhikri kuntum la ta'lamun laakiin wixii aan yani waxa weeyaan de iska maala yani una ama aad qofka ku xiraajinayso sida dadka qaarkood ay sameeyaan وقفك سواء نقبل شيء ذي إنه علمي فايدة يستو أيها لغاية سؤال يعني وحويان فوق الموضوع أما خارج الموضوع بينه شيخي كوي حراجيو سوى دونا يينو حوغي دوحي سوى دونا ياما دادو دونا يينو كوي يرارو روحا سوكالا اللهم باعنا وحكم إذا مركا نبي عليه الصلاة والسلام يابي لو يدين شري أما أي لي علماء قاركود عيدو يكسو الدكتين النبي عليه الصلاة والسلام بصوب حبيب أبو هريرة رضي الله تعالى عنه سوى آد وجهيسو بدلية هي أو عصية هي أو يعني وحوي أي صوب حي من بركو مركا كفر النبي عليه الصلاة والسلام كان يبقى كعيو وحكولي يا رسول الله أين أبي أبهي حقوه كسو جيه نبي وحكولي في النار نارتو كجرة كفر حي نقاس واي ميت كلا كعيا وحد من أبي أبهاي وأيو أبوك حذافة أبا وحذافة يقول النبي عليه الصلاة والسلام مركو عركي عمر ده عبقري بوها رضي الله تعالى عنه مركو عركي لمن كان يدين علي وأبيه لي النبي عليه الصلاة والسلام سيده سؤالها قلنا بصنيو أيا عمر باكعي رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم النبي إلهي بان ربي نمر هالي وقلنا إسلام كان دينهان رالي وقرناهي يعني وحويان النبي عليه الصلاة والسلام أي النبي محمد أي النبي هان رالي وقرناهي وبالقرآن إمام يعيدا أن توسع أننا القرآن كان رالي وقرناهي إنا يا رسول الله النبي بيقول يا رسول الله حديث عاد بجاهلية وحنا هيداد جاهلية دي دوان كيميد وراد كذي ولي أي وحكي سيجران والشرك إيا شركة والله أعلم من آباؤنا إلهي بانا قرنيا آباياشا إيدي هاي للجاهلين بيسكا ينو دمر قدي دوران تشرعي للالنا يمجري وحبادان باسكا ديعجري مركا ما قرنينا حتى آباياشا إيدي وحي نقود دوراني نقرها اللي أهو فسكن غضبه مركا النبي عليه الصلاة والسلام على ذي سويد ديكتي هذا الكا عمر أيان كن في النبي عليه الصلاة والسلام ونزلت هذه الآية ترى آية دبا سويد ديكتي يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم سكيل عليه إن تسألوا عنها إذا دور يسأل النبي سؤال ويديسان حين ينزل القرآن مركا القرآن كسود دقيو تبدأ لكم والله يدين عضي معناها قفك أدو أباهن هي مسألة تفسيرة وقرآن كسابسا أما يعني وحوية مسألة دينية أو يعني وقبا هي دينية وقبا ولا بيامينية عفى الله عما سلف إلهينا وإذ كعفيي وحي تقي والله إلهينا غفور ودم دافه حليم ذو القاد بدن قد سألها وحويدي سؤالها النوع عاصو كلا إسكت عنك كأي مدحضيقا قوم قلا ويديي من قبلكم يديك يديكوري ثم أصبحوا يتلوحي النقضين بها سلوحي أيد البنيين كافرين وكا قالوا به وقال سورة الله قل مقعد رأي بني إسرائيل مائدة قتال البضي بابا كم يذهب ويري أنزل علينا مائدة من السماء ويت البضين
nebi ciise ku ixraajiyeen ilaa ay ku khasbeen nebi ciise calayhi salaam inuu dee ilaahay baryo oo weydiisto. marka yani waxa weeyaan oo garanaysaan yani waxa weeyaan nimankii mushrikiinta inta jeeray nebiga calayhi salaatu wasalaam ay su-aalo u keeneen oo markii su-aalihii looga jawaabayna ay wax kale ula kaceen. marka dee waddadii oo kale ha raacin haddaad tihiin dadka muuminiinta ayaa ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala. kolley halkaasaynu insha allahu tacala waqtigii baa gaadhay. hal shay un baa yar baraarujin lahayo yani waxa weeya darsigeeni xalay markaynu khamrada iyo khamaarka ka hadlaynay. kolley khamrada waynu ku dheeraanay laakiin baalka khamaarka la yidhaahdo dee berigii hore nimanka carabtu waxbay isticmaali jireen. ilaa xad waxay keenaysaa xataa qofku inuu reerkiisa ama caruurtiisa uu maxaan ku rahdaa ku khamaaro, xaaskiisa inuu ku khamaaro. ilaa imikadana dee waad aragtee dhulka gaalada xataa way ka jirtaa oo waxaa jira dad badan oo waxaasun ka shaqaysto ilaa xataa qaarkood ay isdilaanba oo laba ninoo ku tartamaya dee waxaa kaale waxaasoo waa la istooganaya, xabad baa lagu tartamaya marka qaarkood. waxyaabaha had iyo jeer haddana inaga dhalinyarteena dhibaatada ku haya waxaa ka mid ah waxyaabahan lagu isticmaalo applicationada oo yani waxa weeyaan dhalinyartu aadka u isticmaalaan, ama foragas ha la yidhaahdo ama wanagasbit ha la yidhaahdo ama magacyo badan bay leeyihin. kii isagoo dhaqaalaba haysanin buu galayaa inta yaroo hore waa lasoo dhaweynayaa, lacago yani yaa laskaga soo daadaadinayaa. aakhirkana markuu macaltii yani waxa weeyaan hooyadii uu kasoo qaaday ku daro oo tuu soo daysaday uu ku daro oo hadduu xoolo lahaa xoolihii iibiyo wixii oo dhan ba meesha ku shubaaf ayaa laga dhex qaadaya oo dad ugu talagalay inay dadka dhacaan. marka dhalinyartu ha ka waantoobaan. waxa nuucaa lagu helaana dee iib sharciya maaha. waxyaabaha beycee sharcigaana dee kitaabkuna aad buu uga hadlay, sunnada nebiguna waa caddaysay, fuqahada islaamkuna way caddeeyeen. waa in la barto kitaabulbeyc waa in la barto wey. waxaad ka ganacsanayso haddii aanad dee awood iyo agsas u lahayn waa inaad dadka culimada weydiiso. haddii kale xilli aad dee adduun iyo aakhiraba seegtay oo hantidaadina kaa baxday diinta ilaahina subxaana wa tacaala dembi ka gashay ayaa waagu kugu baryaya. markaa la iska ilaaliyo. baaraka allahu fiikum. sala allahu ala